waxay qayb ka tahay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay maalinka haweenka adduunka oo 8 Maarso u aastay qaramada midoobay. Munaasabadan oo ka ballaarneed kuwii hore wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ay qaban jirtay waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, gudoomiyaha baarlamaanka, qaybaha kala duwan ee suugaanleyda iyo haweenka kala yimi gobolada Puntland. Marian Axmed Cali, wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland oo hambalyo u dirtay guud ahaan haweenka Soomaaliyeed ayaa soo bandhigtay waxqabadka u hirgalay sanadkan. 8 Maarso waa maalin ahmiyad weyn u leh bulshada caalamka gaar ahaan haweenka. waa maalin caalamku u xasuusto guulaha ay haweenku ka gaareen dhanka arrimaha bulshada, dhaqaalaha, siyaasadda iyadoo aan loo eegayn isir, af, dhaqan iyo dhaqaale midna. xuska maalinta haweenka waxay soo martay taariikh dheer waxayna qaramada midoobay si rasmi ah u asteysay xuska maalinta haweenka adduunka taariikhdu markay ahayd 8 Maarso 1975 yahay xooji horumarka haweenka. sababta loo qaatay halku dhagaan waxa weeye warbixintii ka soo baxday shirkii dhaqaalaha adduunka ee 2017 ayaa tilmaamaysa in sinaanta ragga iyo dumarka dhanka fursadaha dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed xaqiijintooda aan sidii loo rabay loo gaareen 200 sano ee soo socota haddaan la xoojin horumarka haweenka. mar labaad u hambalyeynaya dhammaan haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa haweenka Puntland xuska maalintan qiimaha badan ee 8 Maarso. waxaan kula dardaarmayaa haweenka Puntland inay iskaashadaan mideeyaan dadaalkooda ku aadan siday u heli lahaayeen xuquuqdooda dastuuriga. Axmed Cali Xaashi, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay ayaa dumarka reer Puntland ku dhiirigeliyay inay kaalintooda ka qaataan ololaha siyaasadeed ee xilligan ka socda gudaha Puntland. waxaa halkan ka muuqata waxa aan moodayay in iska wadhamaaday inuu weli socdo. kufsi baa la sheegay. waxaan rajeynayay dadku inuu maanta mid diineed iyo mid baadiba bartay oo aqoon darradii ay yar tahay waxaas waxa ay keento aqoon darradu. waxaa la sheegay inuu jiro gudcininkii fircooniga hadduu maanta 2018 weli sii jiro iyana waxaad moodaa fari kama qodnafaan noole inaan weli kharibannahay. dhammaan howlahaas oo ah bahalnimo ku jirta ragga oo dumarka ku aadan runtii waa nasiib darro. ninka yaa dhalay yaa u dhaxay gabadh buu dhalay meel kasta waxa weeye dumar iyo haween baynu nolosheena ku tiirsan tahay. waxaan malaynayaa waxaan noo sheegay hooyooyinku iyagaa dhibta ku jira oo haddii dhaqaaluhu yar yahay waxaan arki jiray in hooyadu hadday haysato 5 wiil iyo 5 gabdhood ay 5 wiil horta geyn jirtay iskuulka. taasu jacayl ma ahayn gaara laakiinse waxay iska ahayd arrin iska caadadaasi hadda way socotay dadka badankiisa wiilka iyo gabadha. waxaa xadiis rasmi ah oo shariif aan ku haynaa ilaahay 3 gabdhood hadduu isu kaaxijiyo waa kugu mana sheegtaa. waxaan wasaaradda u hambalyeynayaa runtii intii ka dambeysay sanadkii horena waan ka soo qayb galay sanadkan horumar dhab ah oo la taaban karayo wasaaraddu inay gaadhay dhinac kasta ka gaadhay. waxaan qirayaa shirka laftiisa waxaan u manayaa kuwii hore idinmaana odhan wuu daaran yahay iyo waa nool yahay toona laakiin kan waan furayaa yacni waa markii ugu horreysay 9 gobol baan arkayo inay ka soo qayb galaan. dhammaantood waan hambalyeynayaa. waxaan hambalyeynayaa fanaaniintii mudug ka timi yaryaraha Efrin Fircoona weynaadaan idin leeyahay. waxaan arkay siduu gudoomiyuhu u sheegay runtii in ay fanka iyo suugaanta ku yeelan doonaan raad isla markaan aanu arko inay ka mid noqon doonaan. waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynayaa guud ahaan meel kastoo dumarku uu joogo adduun weynaha waayo waa maalin caalami ah
وإن قف كستو أو دمر الماشي جوكت لغو همبلية يقودهان قال هان وحان همبليين يا كوة خير بلان يا صوماليا بل كستو جوكان همبليان دي هاي أيوب عبد الكريم علي صومالي كابل تي في قروي.